A device of the goat وanother reader. One is Malin, a villager mid kafadaha degan awnet hulaha a donkey damer and a goat yuri. He used it to house small jrid the donkey damerka to carry loads in olezio ama qalab in kusuqato of articles shayal from the village hafada to the city Ukenaye Asmada, where Mesha saw he would roam around the whole day maalintadan selling even his articles qalabadiisa. Sometime marmar qaarkooda he could lend wudemin jiray ama dadku siin jiray his donkey damerkis to others koo kale on hair inuu kireysto when goortii they needed markay u baahan it isla damerki. As the donkey damerki walked hard macnaa u shaqeynayay the whole day maalintadan, the villager ku hafada degan used Smaljan to feed in the villager ninkid hafad degan used to feed quudin jiray the donkey the merka more food unta badan ayuu siin jiray. Then haddii loo barbugay he gave to the good he gave to the good reader usiyo. The good reader felt jealous way kamasartay of the donkey the merka or raashin la siinayo. It advised the donkey the merka ayay waanisay, you work a day very hard maalinta si zaid baad u shaqaysaa but laakiin you do not get rest mana satoba adiga. You must act wa inaad jishaa that so you are ill inaad hanuunsan tahay and fell down inaad isrido unconsciousness ina mirdawalsan tahay. By this tani you will get rest waad nasanaysaa for a few days maalmo ka bacdi. The donkey damerki agreed to u raacay to this tani and acted vigilantly as if it was ill inuu hanuunsan yahay oo kale. The villager ninka hafada degan kolet u wacay the doctor said wuxuu yiri your donkey damerkaaga has a strange illness a strange illness waa xanuun oo uu ku soo socda oo martaa. To cure him ina lagu daaweeyo you must feed him waa inaad ku quudisaa the soap made macna maraqa laga sameeyay of a goat's lungs sambabka oo macna riida. The villager ninka hafada oo kunoolaa ko killed who delayed the goat reader and cooked who kariyay soap maraqa with goat lungs sambabka oo macna riida. Then kadib he fed who ku quudiyay the soap maraqas to the donkey damerki. The goat reader had tried to isku dayday to harm inay waxyeelayso the donkey damerka out of jealousy or maserkeda, but laakiin he had been killed waa la dilay for it is evil nature oo macnaa shaydaannimadeeda dabiiciga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dadku cusubtahay channelkeena fadlan ha ka iloobin subscribe like comment by Hilqaan Abdi Aadan.